Ismaaciil Diyeeshe oo ka mid ah dhalinyaradii runtii xilligii dhexe kubadda cagta ciyaarayay. Ismaaciil Diyeeshe inta badan waxa uu ku sugnaa magaalada Milan ee wadanka Talyaaniga. Ismaaciil Diyeeshe muddooyinkii dambe waxaad moodaa inuu isku dayayo in dhalinyarada aadka u da'da yar uu isku soo ururiyo, taasina ay markaasi ay u fududaato xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya in ay helaan dhalinyaro qaaradda Yurub ku nool isla markaasina u ciyaari kara xulka qaranka ee Soomaaliya. Ismaaciil Diyeeshe muddooyinkii ugu dambeeyay runtii waxaan ka dhex arkay goobaha dhalinyarada isboortiga Soomaalidu ay iskugu yimaadaan. ilaa haatan maxaa kuu suurtagalay in aad hesho laacibiin Soomaali ah? horta Saalimo waa runtaada muddooyinkii dambe horta waxaan xooga saaray ama si buuxda iyagu dhex arkaya sida dhalinyarada dhexdooda runtii maadaama dhalinyarada ayaga igu dhiirigeliyeen in micnaha aan ayaga aan u noqdo si shakhsi role model oo kale ah, maadaama qofba qof uu ku daydaa micnaha anigana runtii waxaan markaas isku dayaa in micnaha aan gaarno natiijo, maadaama aan leenahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo kooxo waaweyn oo micnaha wadamada horumaray meel kasta ha noqoto ama Mareykanka ama Yurub ama Australia, maadaama aan leenahay in koox weyn ay la joogaan experience leeyihiin in laga faa'iideysto, maadaama aysan ciyaartooyda suurtagelaynin wadanka maanta ay joogaan janiska aad u yaryahay in micnaha waaweyn oo ciyaaraan wadan ka dhisan. micnaha Saalim hadaa fiiriso micnaha 10 sano ugu dambeeyay waxaa macquul ah hal cunug inuu madax soo taago junior micnaha kooxaha waaweyn inuu ka soo muuqdo oo kadib micnaha hoos soo dhaco la sii waayabo. micnaha hadana anka Soomaali ah markaan ahne waxaa jiro oo micnaha qof markuu madax soo taago xayeysiin loo sameeyo cunugii micnaha hadana qofkii ma sii soconayo. marka taas marka waxaan isku dayay in micnaha ka badan la sameeyo ama ka duwan la sameeyo in ciyaartooydii aan ka dhaadhiciyo hadiisan micnaha maanta qofka playerska ah haduusan matalaynin national team micnaha ma aha maanta Soomaali in la yiraahdo Soomaali aad magaciisa ku dhumay kuleysay dhalinyarada qaar ay aaminsan yihiin, laakiin magaciisa kuma dhumay labo shay ay meesha ka soo baxay in wadankii oo micnaha quality oo ku soo kordhiyo maadaama koox weyn oo la joogo professional ah dhalinyaradii oo training kala sameeyay inuu micnaha jaanis fiican siiyo oo asagna fursad u noqoto in micnaha kalaawada ay arkaan ninkan uu yahay micnaha nin baxayo oo aaday national team. laakiin waxaan ku weydiinayaa maadaama aad adiga Talyaaniga ay joogtay siday kugu suurta gashay in xulka qaranka aad markaas u safato? wallahi micnaha Saalim nasiib waay, micnaha aniga nasiibka soo raadsaday muxuu dhahay aniga micnaha isma faaninay waxay igu suurta gashay oo micnaha si oo lama filaan ciyaar oo ana u tagay magaaladan Firenze markaasna ay ku sugnaayeen sibo Allah naxariisto gudoomiyihii hore Mugambe meesha joogay. marna waxaan ku wada kulanay ayagoo u imaaday FIFA Cabdiqani iyo Allah naxariisto Mugambe iyo groupka markaas xiriirka waday. haddana waxaan ku wada kulanay Switzerland. markaasna waxa ahay micnaha qof yar markaas soo baxay madax soo taagay oo qof kasta micnaha u muuqday ay arkayeen oo micnaha gudoomiyihii lagu dhiirigeliyay inay la soo xiriiraan kadib ay xoog igu saareen. laakiin muddooyinka dambe hadda fiiriso dhalinyaro badan ayaan leenahay, laakiin waxaa meeshii ka maqan connection means xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya ee dhalinyarada. kulli hadda isa ogtahay baani micnaha bilooyin ka horta gudoomiyaha waa wada kulanay oo micnaha xiriirkan in la xoojiyo dhalinyaradii la tuso in micnaha meeshan uu jiro kubadda cagta uu jiro in laga dhaadhiciyo in la fahansiyo in xiriirka uu leeyahay micnaha meel laga xiriiro in xiriirka uu diyaar u yahay ilbaawada ay furan yihiin inuu oo imaado Soomaaliya rabo in micnaha uu matalo qarankiisa dada laakiin aaminsan. Ismaaciil runtii arintaasi dad badan ayaa ka soo horjeeda sida aad la socoto madaxda sare isboortiga Soomaalida marka ay yimaadaan qaaradda Yurub sax waxaad moodaa in ay magacaabaan qof ay markaas ay saaxiib ay yihiin. taasi waxa ay keentay magacaabitaankaasi in qofkaas uusan waxba uusan ku soo kordhin karin isboortiga dhalinyarada dibadda ku nool. taasi ma laga yaabaa inay caqabad ku tahay in maamulka isboortiga Soomaalida ay mar waliba isku dayaan in si saaxiibtinimo ah ay xil ku magacaabaan magacaabitaankaasina uu yahay waxaan la yiraahdo magac u sheeg? Ismaaciil wallahi macnaha Saalim dadka kulli isku aragti ma qofba si horta u arkaa macnaha dadkan maanta lama dhihi karo wax ma soo qabanin kulli wax waa soo qabteen. ma eragaas waxaan ku leeyahay rag badan ayaa la kulmay Ismaaciil runtii ku magacaaban example waxa la leeyahay ninka Ismaaciil Diyeeshe waa ninka u qaabilsan ciyaaraha kubadda cagta wadankan Ingiriiska ama qaaradda Yurub, laakiin wax muuqda ma laha. hay muftan arintaasi ka waran?
salimo way jirtaa dabacsanaan ah xiriirka kubadda cagta iyo macnaha qofkay magacaabayaan kaliya ma aha dadka ku leh macnaha isboortiga magaca ku leh ama hawshiisa ku dhex jira iyo xiriir kubadda cagta kama dhexeeyo amaba wasaaradda isboortiga kama dhexeeyo wax xiriir kama dhexeeyaan haddii uu jiro xiriir fiican oo ka dhexeeyo xiriir kubadda cagta iyo dadka ku howlan example kubadda cagta ku howlan haddii uu jiro xiriir iyadoon qof la magacaabin ayaa waxaa la samayn karaa xiriir fiican haddii uu jiro ciyaaryahankii wanaagsan la arko xiriirka lagu xiri karaa dhihi karaa ninkaas 16 jirada ha u dheela qaranka ninkan waa 18 jirada qaranka 18 jirada ciyaarsiya markii hadda anaga Yurub dadka soo gala ama North America dhalinyarada yaryar 16 jirada ah waxaa la heli karaa runtii xulka qaranka Soomaaliya ee matala 16 jirada sax way oo runtii talent wada ah laakiin waxa naga maqan xiriirintii dadka dibadda qurbaha iyo dadka Soomaaliya xiriirka kubadda cagta waxaan u baahan tahay xiriirin rasmi ah ay u baahan tahay taas daawadayaal arrintani waa arrin runtii inta badan taagan xiriirka kubadda cagta ama xiriirada kale isboortiga waxaad moodaa xiliyada ay imaanayaan qaaradda Yurub in ay u magacaabaan dhalinyaro ay markaasi aad moodo in ay isxigaan ama ay furan ay yihiin taasina waxa ay baabi'isay horumarka isboortiga Soomaalida runtii muddooyinkii dambe waxaan isku dayeynay in aan la xiriirno dhalinyarada isboortiga ee kubadda cagta oo runtiina Ismaaciil Diyeeshe uu wax weyn oo runtii arrintaas iga saaciday si aan u helno dhalinyaro ka ciyaara qaaradda Yurub, Mareykanka iyo Australia. Arrintaasi runtii waxaan filayaa in feedback aad u qurux badan ama aragtiyo aad u qurux badan aan ka helnay Soomaaliya ama meel alaala meesha ay Soomaalidu ay markaas ay ku nool yihiin. waxaan isku dayi doonaa hadday noo suurto gasho in